madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa caawa soo gaaray magaalada Djibouti. madaxweynuhu wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Cumar Geele maalinta berri ah, waxayna labada madaxweyne ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka walaaltinimo ee dhiig wadaaga ah ee dhaqan wadaaga ah ee ka dhaxeeya labada dal iyo dad. sidoo kale waxaa wada hadallada labada madaxweyne diiradda lagu saari doonaa arrimaha gobolka guud ahaan, amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horumarintiisa iyo sidii iskaashi buuxa dalalka gobolka u yeelan lahaayeen. waxaan sidoo kale labada madaxweyne ay ka wada tashan doonaan sidii loo dardargelin lahaa howlaha nabadeynta Soomaaliya oo Djibouti kaalin mug la ka qaadato.